nabadda wadayaal ku soo dhawaada page-kayga Nimco Cumar Xuseen waa mar kale iyo barnaamijkeennii madasha waayeelka waxaa maanta marti inoogu ah Mardiya Siciid Jaamac jilaayad weyn gudaha Soomaaliyeed iyo guud ahaan ay dadku aad u garanayaan kulli markaan sidaa idinku sheegay kulli aad u maqlimeysaan markaad codkayga maqashaan baad xasuusanaysaan sideetamaadkii toddobaatanaadkii iyo waliba haatan ilaa xiliyadeedii riwaayadaha ay matali jirtay walka makibiya makiko ajaadka ma Soomaaliya moskak baba kala soo dhaw Mardiya ku soo dhaw page-kayga waan dhawahay laakiin su'aal ba kelmad baa tiri madasha waayeelka oo kale waayeelku ma waayeel baa xigaaday kulli barnaamijka cid walba ka soo qayb galayso waa suurtagal may waayeel mayano dood baa ka taagan anigu waxaan ahay 18 ma dhaafo mid labaad 78 ciyaal baan ahay waa gartay wixii ka dambeeyay 80 xaqan soo maray halkaas aynu ka jaan qaadaynaay ku soo dhaw page-kayga waan ku dhawaa maanta waayo iyo barisamaadkii baynu iska wareysanaynaa qof weyn oo Soomaalidu oo dhan taqaanaa tahay kulli ilaa weynida ka reebo hay waa si wanaagsan aanay dadku ka xiisa dhicin waa tuma halkeed ku dhalatay ku barbaartay bismillaahir rahmaanir rahiim nimca salaan guud baan ku siinayaa adiga wariyayaasha kale iyo kameramaanada waxaan ku dhashay anigu dalka Jamhuuriyadda Djibouti waxaan ku barbaaray Djibouti waxaan fanka ka galay Djibouti marka anu Djibouti ma laha oka si wanaagsan goorma ayaad fanka ku soo beertay waxaan ku soo beeray 1982 waa gartay yaan ku soo beeray xilligaas ku soo beertay inaad majaajilo ama majaajilaysato noqoto maxaa ku kalifay maxaa ku dooratay horta anoo yar baan jeclaa fanka anoo yar oo iskoolka dhigta ayaa liga kari waayay heesaha iskoolka dhan waxaan uga baxay fanbuha heesahan jeclaa waxaan xafidi jiray ruwaadaha marka la dhigayo waxaan xafidi jiray majaajil garaarada ayaan ruwaada caawa la dhigo garaarkeyga dusha ka wada hayn jiray marka hobbigayga waa noqday dhiigaygu ku jiray fanku sidaa baan u galay ma xasuusataa riwaayadii ugu horeysay aad jisho teebay waan xasuustaa waxa la oran jiray gif jacayl geeri ina yar baan matalayay oo dhagala waan dhagala marka hadaad bal yar inooga soo qabato xasuus xilligaas inkastoo dhagalaanta ka dhaartay adiga daraada aabahay baa يا محيد اللي يقول ديبي توال يديبي توال كجات كلو دوبة ده جبوتي جات كتوال بالو دوبة موقته مركز يو توال كا مكيبيا مكيكو جات كا ما Soomaaliya موسكك ما كلا سوى ناكسن مركي وجوه الرئيسات وحششوا شعورتها بالصدى هيد والله هبي بانها وحن كجري وحن قليه هيد كوح لو رنجري قعن معان maanta waxba kama noola afar qof ka ganoolihiin macallimiintii waaweyneed waxa ahayn fanaaniinta Djibouti kooxdii ugu waaweyneed bay ahayd dhamaantood way wada dhinteen Allah yarxamo marka ragga ugu qosalka badan ba dhexdooda la dhigay Allah u naxariistay gofane Allah u naxariistay xanjabuuf nin loo oran jiray Allah u naxariistay jigjigawi hooyaday matalayay Allah u naxariistay Ibrahim Garle oo aabahay matalayay adu ragii ugu qosalka badnaa ayaan dhaxda u galay nimca jaamacna waxay hayd walaashay fuad ilka caso maanta naga xanuunsanaya Allah caafiye ayaa isaguna walaalkay matalayay marka ruwaada waxay hayd dadoo dhan oo dadkii waliba qamaamirtii waaweyneeda aan dhaxda ugu jiray marka habbi baan ku noqday sidii baan ruwaadi ku dhigay inta badan dhanka family-ga haweenku way ka duwan yihiin mararka qaar markay wax qabanayaan xilligaad ku soo biirtay fanka ama aad wax jishay family-ga wax caqabada ma kala kulantay aad iyo aad anu horta waxaan haysaa inan hooyadeed kaligeed leedahay oo marka inan yari ka daba dhalatay marka waxay hayd hooyo de waad garanaysaa hooyo inanteeda caruurteeda aad u weyn tahay
intii iga waaweyned in kastoo dhimatay kolkaan anugan ugu weynaa oo dee halkay iskool iyo tacliin iyo wax ka filaysay TV kaga soo baxday dagaal baa naga dhexeeyey way la dagaalami jirtay buuq baa macali odayaasha faamigayga daadeeradaya midba siduu ila hadli jiray qof dhintay xagooga ayaan qaarkood ka ahaa haddana odayga Allah u naxariistay ugu fiicnaa waa oday Allah u naxariistay uu dhintay adeerkay ahaayo Cabdi Xadi looran jiray oo soo koriyay ayaa iga yidhi adeer mar haddaad jeclaatay inaad fanka geshid adeer sharaftaada dhowr adeer taa wadi ogtahay baan kayd inaan sharaftaydu baabiin anaa ballan kuugu qaaday sidii baan ku galay fankii aduu muddo laga hadhay de hay oo lagu daayay marka muddo la haystay bal iska kijiday intaad fanka ku jirtay ama aad wax jilaysay waxyaabay kuugu yaabka badnaa la kulanta maxaa kamid ah maanta iyo xisi karto waxa aan igu yaab badnaa horta inanta shacibka ah ee iska joogta aan fanaanada hayn iyo inanta fanaanadu waa isku mid ah inantan xafiiska fadhida ee qalinka qoraysa dawaar saaqad Ilaahay uu qoray inay qalin iyo buug ku shaqaysato tan fanaanadana waa risqi Ilaahay uu qoray waa fanka ayay ku shaqaysanaysaa marka dadkeeni uma haystaan inay inanta fanaanadida dad ay kamid tahay uun shacibka ay kamid tahay uma haystaan marka guurkaygu horeeyay iyo qisadu taagneed marka islaan soo inanka intaan wada sheekaysanay islaanta hooyadiis waa aad bay jecleed oo isku fiicnay maalintii uu hooyo waan guursanayaa ayay hadda qorigi dabka qaadatay ma guursanaysid waa naagta suuqa ku jirta naagta maxayga ah maxarin baad iga tahay dad guursatay isna uu ka dhiga adkaaday sidii uu ku adkaaday uu yiri ilowbay laanu waan jecelahay madaynayo waan guursanayaa sidii uu guurkii aabiyo marka boorma joogay ayuu intii Djibouti imanayuu sugay Djibouti buu marka odaygii yimiday odaygii buu u sheegay markaas sidii odaygii aabihiina waan dad faamiyo wada dhashayna waan ahayn iyo aabihii faamigii ugu tagay islaantii intii aan guriga lahayn 4 sano guri lahayn 4 sano imay arki karin imaba arki karinba sidayna arki karin bayna kila nagu kala furay laba qof oo isjecel la kala furay baan ahay sidii baan ku kala tagnay marka waxyaalaha iga yaabiyay taas ahay si fiican ruwaayadihii badnaayad jashay mid hana qaaday oo Soomaali oo dhan ay jecel yihiin baa jirta oo ilaa haatan waqtigeegu sii jiro ayla jecel ruwaayada aad baad saameyn ugu lahayd bal xaalka iyo ruwaayadaasi maanta warkayga ka warbixi horta gabar waxaan ahaa lacag le gabar lacag le oo marka laba gabdhood baan ahayn gabri raga odayaasha lacagta la jeclay waa cusub waana fadun ducaale insha Allah way joogtaa boorama waad waraysan doontaa inkastoo jeclaa maanta inaan isgara fariisano oo hadalada isku tuurano way iga xanuunsatay marka iyadu xagga odayaasha lacagta ayay ahayd aniguna waxaan ahaa naag Ilaahay wax siiyo dhalinyarada iska soo bibiyeysa maxaa waxa la yiraahdaa kalluunka shabakada lagu tuuro lagu lacagtadan ku soo qabanay marka Ilaahay wuxuu daba dhigay islaan tuba soo jaarkayga Ilaahay daba dhigayo mar walba wax iga sheegta ayaa maxay hayday Ilaahay daba dhigay kan leeshiyo islaanta yeeri jirtay aakhirkii marka wiil waxa jiray jeclaa asab oo odayga ay lacagta ka guraysay adeer waha oo diiday inankii la eriyay iyada daraadeed lagu aqalkii laga eriyay ayaan marka u dambeysay inanka u dambeeyay islaantu iga erido ayaan meel gidaar isagoo iska beehaafay kala kulmaya inankii baan de marka u tagaabeynayaan wax u qabanayaayo aan maxay hayday gidaarkii ka soo kicinaya online kale nolol magacii dhala jacla marka waan bedelay ilaa dhala jacla uma soo hagaagay asab la bax
waxaan la baxay cawaan la baxay casab naagta kale ahayd sidii baan inankii markii aan hagaajiyey inantii odaygii ay sirteedii ogaaday inaan caanu dhalayna wuu jeclaa ha waa gabadha saddex faamiyi wada jeclaayeen ayaan maxay hayday ayaan inankii abaalgud odaygii inankiiba odaygii adeerkii baa u yeedhay way heshiiyeen abaalgud buu markaa iigu yimid uu yidhi abaalkaadii gashay ayaan kugu guursanayaa sidii buu inankii igu guursaday magaciina waan bedelay ceeblaan la baxay dhayla jeceshii waxaan waan iska daayey inantii baa markaa iigu imanaysa inankii markii odaygiina soo eriyo ayay inankii iigu imanaysa dee waxdaraan ku dhigay waan dilayaa marka riwaayadaha inta badan aad matali jirtay qofba door buu ka galaa doorka ama kaalintaad inta badan riwaayadaha ka geli jirtay teebay ahayd inta badan aan waxaan ka geli jiray intii hore waxa jirta aad ninka qabanayso sabaxadeynaysaana way jirtaa riwaayadaha way badan yihiin horta riwaayadihii ma kala xasuustay imika waxaan xasuustaa qaahiro oo kale jacaylkaagu qaahiro ma qodbi buu ku leeyahay waan xasuustaa taa waxaan matalayay inan ciidana marka inankii iyo inantii isqabay eenu shaqaynayay inantii waxay dhacday inay mar walba baxdo oy warqado u qorto oy qaahiro unu dirto qaarna Boston ka soo qaadato qaarna ay sii dirto markuu yimaado uu yiraahdo aawe islaanta qoyskii waxaan raadaan waraqay qaado qaahiray u diraysa qaarna way ka sugaysay adoo aakhirkii way kala tagay dee halkii aan wax kale ka sugayay anigu isku kay soo rogay dee shaqeedii ilaahay uu siiyey calaf maxaad malays dhab ay siinaysaa dhab baan siiyey inkastoo kolkii hore ka yara galgashay dhab baan siiyey haddaan dhab siiyeyna inankii aanunba isku rogay haddana waa anigana xaggan isaga inantaa qaahiruu ku furay iyo waraaqaha ana waxay igu furaya bum baaba faal baaba waa faaliyo aqalkaaba saarar laho maxay baa sunsumayo halkaaba annasaaba laygu furay saddexdii baa lay dhiibay si wanaagsan marka laga yimaado inaad wax jisho dhanka fanka inaad hees qaadi karto misku dayday aad iyo aad albumkay waxay ku jiraan YouTube-ka heesahay mid kamid ah haddaad inoo soo qabato waxaan soo qabani hees waxaa jirta heesahay way ku jiraan YouTube-ka markaa heestaan ka xasuusanaya waxa weeyaan indhuhu waxay meeleecsadaan muuqaalka hortooda yaal halkii ugu midab qurxoon daaqo wuxuu magansadaa mudnaanta qofka jeclayd qalbigu kula magan yahay inaad meel wada degtaan milgaha guur waa ismaqal markaan mudano idha inaad iga maqashidiyo mabsuud baan ka rabaa inkastoo fan wada yihiin oo dee qofka wax jilay iyo qofka wax sameey abwaanka kale fan la wada yahay haddana markaad eegto majaajilaystu muxuu kaga duwan yahay heesaaga iyo abwaanka wuxuu kaga duwan yahay waxa weeyaan filimadan aan daawanay Mareykanka nimanka filimada soo metelay waa majaajiliste haddana maxaa lagu yiraahdaa waa actor marka dadkani majaajilaystu waa actor wayna ka af Soomaaligana way ka xafid yaqaanada heesaaga imika qofka heesaaga laba eri ma wareysan karis waa gartay inuu heeso mooyaan aad iyo laakiin qofkan waa qof suugaanti xafidaya geeraa ruux xafidaya marka filimkii baa loo dhiibaa filimkii buu matalaya imika anoo kale filim waan matalay Hollywoodka ku jira waa filimkii la yiraahdo ubaxi saxaraha waris waa filim saameyn la aad iyo waan ku jiraa ayaydan matalaya marka waxa weeyaan qofkan lagu leeyahay actorka filimka Mareykanka la daawanayo iyo qoladeenan majaajilada lagu leeyahay waa isla yagiyo waa isla wada actor marka ka gooni waa isku mid baan nahay oo de fanki waan wadanahay laakiin waan ka af Soomaali waan ka fiican waan ka xafidaad fiican ugu dambeyn
fankii hore iyo fankan dambe haddaad isbarbar dhigto maxaa farqiga u dhexeeya maxaa xilligii hore oo jiray oo hadda suulay maxaa cusub oo fankii kusoo biiray oo aad maanta sheegi karto waxa weeyaan horta fankii uu sii socdaa facebookana uu baabiyey iyo waxaan tiktokan iyo waxa la sheegayo fanka karbaash buu qaatay fankii hore fan wuxuu ahaa buuxa heesaagiyo diyaara jilaagiyo oo diyaara abwaankii muusikistii oo buuxa heestu waxay ku qurux bantay markuu muusigu buuxo laakiin maanta waa organ waxa ma sheego iyo computer waxa weeyaan qof walba wada waan heesayaa weeyaan dad hadli karto inta dad hadli kartid waad heesi kartaa computerka un baa hagaajinaya marka fankii hore iyo fankii imika farq weyn baa u dhaxeeya farqi weyn ayaa u dhaxeeya waxaanan oran lahaa horta dadkii wax matalay way wada tageen allah wada naxariisto inta joogtana waa in hadda toole da taagan sida anigu wali waan daadaydu way yartahay laakiin dadkii aniga igu horeeyay hadda waa dad waaweyn haddana wallahi macallin way noqon kari lahay iyaga iska daaya annagii wax ka soo baranay ayaa maanta macallin noqon lahay oo wax u sheegi lahayn cidba kulama tashanayso anu fanaanad baana waan heesaaba lagu waxba uma sheegi karaysid waxaa jira heesihii hore ee fanaantii hore waaweyneed heesii ayay soo qaataan karbaash bay la dhacaan midhihii foorteembada maaha waa midhihii bay dhulka la galaan marka waxaan odhan lahaa fanaaniinta dambe dee hooyo si waad socotaane marka ama heesa aad leedihiinna music buuxa la doonta heesaha aad leedihiin wuxuu fanku ku fiican yahay waa music buuxe mar haddaad heesaa tihiin music buuxa oo qalabkiisu dhan yahay heesiina kalaynigu tumo oo dhalinyarada jiinkan dambe ay naga soo daba baxay heesiina ku raaxaystaan heesaha fanaaniintii hore qaadaysiina haddii uu fanaankii dhintay kolley aan abwaan baad arkaysiin ama fanaan kale oo u dhawaa baad arkaysiin midhaha noo saxadhe si ay heestii anaga halkaygu bixin taasaan ku waanin lahaa iyagana midda labaad waxaan leeyahay odayaasha waaweyn ee abwaanada war fankii wuu sii socdaay fankuna dhaqan buu ku xidhnaa dhaqankeenii buu haa wixii xunay wixii sanba wuu sheegay fanku waxaan odhanayaa markaa bal riwaayadihii dib u soo amba qaado oo riwaayadaha dib u dhigo oo majaajilaysta jalaagii keeno oo dadka wax ka dhaadhiciya Soomaali maanta way kala wada jeedaaye bal isku soo jeediya ayaan odhan lahaa ugu dambeyn inagoo kulli soo gabagabayn doona barnaamijka inkastoo ka miisaan weyn tahay in hal barnaamij iyo laba barnaamij lagu soo koobo taariikhdaadii heesahaagii haddaad inoogu noqoto xabadaynu ku soo gabagabaynay inoo soo qabo kalgacayl ciyaar maaha kaftan iyo cilaaq maaha col hadduu ku weeraro layska caabi karo maaha ceebiyo xasaradiyo canaaniyo ceeb magayo canaaniyo eed magayo calooliba calooshay calmataa bogsiise ha guulaysta caashiqu mardiya siciid jaamac mid kamida jilayaashii ugu saameynta badnaa Soomaali xilliyadii hore iyo barisimaadkii la waqtigan dalka Djibouti maanta waxay marti ku ahayd beejkayga Nimco Cumar Xuseen waqtigay isoo siisay waan uga mahad celinayaa kamaraduhu waabi Maxamed Cabdullaahi Askar iyo Siraaji anigoo Nimco Cumar Xuseen halkan idin la socodsiinaysay intaynu barnaamij la mid ku kulmi doono nabad geliyo aniga iyo mardiyo isu duuban iyo barnaamijka iyo nabadiin aad